Ereyga Melchizedek asalkiisu wuxuu tagayaa Malakh oo ah kitaabkan Alkhimaa'i waxaa qoray nin lagu magacaabo Pablo Coelho, waa qoraa u dhashay dalka Brazil-ka. Kitaabkiisa wuxuu qoray 1988, maantana waxaa loo turjumay ilaa 80 luqadood, in ka badan 150 milyan oo buuggiisa ahna adduunyada daafaheeda ayaa lagu iibiyey. Inkastoo sheekadan waa hore la qoray, laakiin caalamka aad ayay u faaftay. Waxaa jiri jiray qowsaar ari raaci jiray oo lagu magacaabo Santiago. Wuxuu ku noolaa baadiyaha dalka Andalus. Habeen habeenada ka mid ah wuxuu arkay riyo la yaab leh oo markii labaad uu ku riyoonayo. Labadii jeerba wuxuu arkay cunug yar oo u tilmaamaya in kanzi ama hanti ay ku duugan tahay dalka Masar, gaar ahaan ahraamaadka agtiisa. Riyadiisa waxay ahayd mid cad oo si fiican u xasuusto. Markuu soo kacay wuxuu ku wareeray inuu riyadiisa run ahaan u qaato oo kanziga uu baadi goobo iyo inuu arigiisa la joogo. Santiago wuxuu ahaa qof arigiisa aad u jecel, isla markaana safarada jecel. Kadib wuxuu u tagay duq si ay ugu fasirto riyadiisa. Duqdii waxay ku dhahday, riyadaada waan ku fasiraa, laakiin waxaa ii ballan qaadaa in kanziga markaad soo hesho 10 meelood hal meel aad i siin doonto. Asagana wuu ka ballan qaaday. Waxay ku dhahday, riyadaada waa sax, kanzigana wuxuu ku duugan yahay isla meesha aad ku riyootay, orod baadi goob. Santiago wuxuu ka soo tagay duqdii asagoo yaaban. Galab galbaha ka mid ah ayaa waxay is arkayaan nin isku tilmaamay inuu yahay boqor, magaciisana ku sheegay Melchizedek Salem. Sheeko dheer kadib, ninkii boqorka ahaa wuxuu baray Santiago inuu riyadiisa raaco uuna ka guul gaaro wax uu ku tilmaamay al-ustura ash-shakhsiya ama yoolka adduunka uu joogo, oo ah riyadiisa iyo hamigiisa iyo wax walba uu rabo inuu heli karo. Intaas kadib, Santiago wuu fakiray, wuxuuna isku xiray riyadiisii, hadalkii duqda, iyo ninka boqorka ah hadalkiisii. Kadib wuxuu go'aansaday inuu u soo baxo si uu u xaqiijin lahaa riyadiisa. Arigiisii muddo gaaban ayuu ku gaday, wuuna soo baxay. Intuu waddada ku soo jiray waxaa laga xaday dhammaan lacagtii uu safarkiisa u soo qaatay. Kadib wuu niyad jabay, laakiin wuxuu go'aansaday inuusan quusan, uu shaqaysto. Wuxuu ka shaqo bilaabay meel lagu iibiyo waxyaabaha dhaldhalaala sida alaabta dhalada ah. Sanad ayuu ka shaqaynayay, lacag fara badanna wuu ka urursaday. Wuxuu is dhahay gurigiisa iskaga laabo, laakiin wuxuu go'aansaday in safarkiisa uusan dhex uga tagin, uu hore u sii socdo. Wuxuu soo raacay kolonyo safar aheyd. Waxay ku soo baxeen saxaraha dhererka badan, qaraxa rafaadka, dabaysha marna kulul marna qabow. Intuu saxaraha ku soo jiray wuxuu ka fakarayay saxaraha aadka u weyn, arigiisii iyo cidiisii siday saxaraha u soo socdeen. Hogaamiyihii kolonyada ayaa u sheegay inay jirto dagaal qabiileed ayna ku hakan doonaan meesha ugu horeysa ee dad degan yihiin. Meeshii markay ku degeen, halkaas wuxuu kula kulmay jacaylkii noloshiisa oo la dhihi jiray Fatima. Sidoo kale wuxuu la kulmay ninkii ahaa Alkhimaa'i, oo ah magac loogu yeero qofka u beddela waxyaabaha aan qiimaha lahayn wax qiimo leh, sida inuu birta ka dhigo dahab ama xabbadda ciidda ah uu ka dhigi karo dahab iyo wixii la mid ah. Alkhimaa'igu wuxuu Santiago baraa casharro fara badan, wuxuuna ku dhiirrigeliyaa mar walba inuu kanzigiisa ka sal gaaro uuna riyadiisa xaqiijiyo. Santiago ugu dambeyn wuxuu soo macsalaamay saaxiibtiis, wuxuuna ballan uga qaaday inuu u soo laaban doono. Goor subax alisay ah ayay soo raaceen Santiago iyo Alkhimaa'iga, wuxuuna u soo raacay si uu jidka uga caawiyo. Intay jidka ku soo jireen waxay la kulmeen tuugo, halkaasna ayaa Santiago mar labaad hantidiisii lagu dhacay. Waxaa kaloo halkaas ka dhacay dhacdo la yaab leh oo ah in Santiago uu isku beddeli doono dabayl, halkaasna uu kula hadli doono dabaysha iyo qorraxda.
Kadib ninkii khimyaa'iga ahaa iyo isaga way soo baxeen, waxayna imaadeen nin kaahin ah gurigiisa. Halkaas ninkii khimyaa'iga ahaa wuxuu ku sameeyey dahab, wuxuuna u kala qaybiyey ninkii kaahinka ahaa iyo Santiago, isagana qayb kale ayuu qaatay. Halkaas ayuu uga haray Santiago, wuxuuna ku dhahay 3 saacadood ayaa kuu dhiman safarkaagii macsalaama. Halkaas ayuuna uga haray. Santiago wuu soo baxay, markuu imaaday ahraamaadka agtooda ayuu wuxuu bilaabay inuu qodo god si uu u baaro kanzigiisii. Kadib ayaa waxaa u timid tuugo asagoo halkaas godkii ku qodaya. Way dileen, waxayna ka qaateen dahabkii oo ninkii khimyaa'iga ahaa soo siiyey. Waxayna dhaheen si fiican u qod si ay uga qaataan kanziga. Siduu u qodayay ayay waxba waayeen. Nin ka mid ah tuugadii ayaa wuxuu ku dhahay, hadda ka hor waxaan ku riyooday in baadiyaha Spain kaniisadda agteeda geed halkaas ku yaalla hoostiisa uu ku duugan yahay kanzi, laakiin anigu dabaal ma hayo sidaada camal oo intaas oo safar ah riyo darteed uma galeen. Kadib Santiago wuxuu fahmaa in kanzigiisii uu helay, wuxuuna u soo laabtay Spain. Geedkii uu ku riyooday hoostiisa ayuu ka qoday, wuxuuna helay kanzigiisii. Sheekada guud ahaan waa intaas isku soo duuduub, laakiin waxyaabo fara badan ayay nolosha naga baraysaa. Waxyaabaha ay naga baraysa waxaa ka mid ah inaad taqaanid marka ugu horreysa meesha u socotid, nolosha maxaa yeelka leedahay. Intaas kaliya kuguma filna, laakiin waa inaad la imaatid dhaqan gelin oo dhaqan gelisid oo ficilkii aad la imaatid. Sidoo kale waxyaabaha sheekada ku baranayna waxaa ka mid ah cabsida. Wuxuu ku leeyahay xanuunka cabsida ee kugu hayso ayaa wax walba ka daran, sababtoo ah waxba kama faa'iidaysid waana ku sii xanuunsanaysaa. Sidoo kale waxaa ka baranaynaa in aanan quusanin. Wuxuu tusaale u soo qaadanayaa dad fara badan oo maanta noloshooda haddaysan quusan lahayn ay wax fara badan iska beddeli lahayd, laakiin maadaama ay quusteen ay halkaas noloshooda ku istaagtay. Waxaa kaloo ka baranaynaa in qofka uu hadafkiisa uu xaqiijiyo. Inta uu qofka hadafkiisa xaqiijinayo wuxuu ku dhex jiraa safar. Safarkiisaas waxyaabo fara badan ayuu la kulmaa. Waxyaabahaas uu la kulmayana waxay ka muhiimsan yihiin hadafka xaqiijintiisa laftirkiisa. Oo waxaa laga rabaa inta safarkiisa uu ku sii socdo waxyaabaha uu la kulmayo inuu wax fara badan ka barto oo ku raaxaysto, sababtoo ah waa cimrigiisa iyo noloshiisa. Wuxuu kaloo kaatibka halkaas ku sheegayaa in qofka qalbigiisa mar walba uu dhageysto naftiisa waxa ka dhex guuxaya uuna xaqiijiyo. Waxaa jira macno intaas ka xeel dheer iyo fariimo khatar ah oo ku daahsoon kitaabka dhexdiisa. Buugga waxaa ku jira aayado Qur'aan ah iyo dhaqamada Islaamka qaar ka mid ah. Sidoo kale waxaa ku xusan 5 tiir ee Islaamka. Fakta ugu horreysa markaad kitaabka u fiirsatid waxaa arkaysaa in Santiago uu raadinayo wax lagu magacaabay al-ustura al-shakhsiya ama personal legend oo kaatibku uu kala jeedo xornimada saxda ah. Wuxuu ku leeyahay wax walba aad rabtid waad gaari kartaa, koonka oo dhan ayaana ku adeecaya si aad u gaartid oo kugu caawinayo. Taasna waa shirki cad oo koonka waxba ma qaban karo, laakiin Ilaahay waaxidka ah ayaa wax walba anaga ka barinaa oo na siiya. Sheekada dhan markaad u fiirsatid waxaa arkaysaa in Santiago uu u socday ahraamaadka Masar. Calaamadda 3 xagalka ah ay tahay calaamadaha Illuminati-ga midda ugu cadcad ay isticmaalaan. Qoladan Illuminati-ga oo ah qolada Masiixu Dajjaalka adduunka u sii diyaarisa, juhdi weynna ku bixisa inay diintooda gaarsiiyaan dadka si walba iyo qaab walba. Kitaabka waxaa kaloo ku jira muctaqadka sixirka ay aaminsan yihiin qoladaas. Markii aad kitaabka magaciisa taxliiliso oo u fiirsato The Alchemist
waxaa arkaynaa macnaheeda kore markii laga soo tago inay jiraan qolo diimeed la dhihi jiray alchemy ayna aaminsan yihiin Rosicruciyiinta iyo Masoniyiinta. Magaca kitaabka ayaaba macno aad u weyn ku daahsoon yahay. Illuminatigana waxay sidaas u sameynayaan oo adduunka ugu faafinayaan calaamadahooda daahsoon sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in maskaxda dadka ay qabsanayaan ayna xakameyn karaan. Hadafka ugu dambeeya iyo yoolka ay leeyihiinna waa in aad aamintid Masiixu Dajaal ay maskaxdaada ka dhaadhacdo. Kitaabkan The Alchemist ama Alkhimaa'i wuxuu leeyahay dhowr garbad oo kala duwan. Markaad aragtid garbadyadiisa mid ka mid ah, waxaad arkaysaa wax walba oo caadi ah oo cad. Waxaad arkaysaa calaamadii saddex xagalka ah, acwarka Masiixu Dajaalka halka il leh oo wax walba arkaysa, Santiago iyo arigiisii. Waxaa kaloo arkaysaa qoraxda iyo bisha. Sheekadani waxaa ku jirtay qayb dhan uu Santiago kula hadlayo dabaysha, qoraxda, ayna amarkiisa qaadanayaan. Waana sixirka saxda ah ee saaxiriinta isticmaalaan. Sidoo kale waxaa jira macno kale oo aad u xeel dheer oo ku dhex daahsoon buugga. Boqorkii uu la kulmay Santiago, magaciisana kaatibku uu ku sheegay Melchizedek Salem. Ereyga Melchizedek asalkiisu wuxuu tagayaa Moloch oo ah waana ilaaha boqorka Kancaan ay ilmaha inta la gowraco cibaado ahaan loogu dhowaan jiray. Ilaa maantana adduunka ay ka jirto, laakiin qaab hoos ah. Sidoo kale kitaabka waxaa ku dhex qarsoon fariimo badan oo Illuminati ah haddaadan ka fiirsan maskaxdaada qabsanayso. Markaa dib ugu laabano tirada buugga ee dadweynaha laga iibsaday, waxaa fahmaynaa in ujeedka laga leeyahay kitaabkan uu intaas ka xeel dheer yahay.